sharaftan oo wasiirku sameeyay ardaydan oo ahayd mid iskugu jirta soo dhaweyn iyo dhiirigelin uu wasiirku u fidinayay ardayda qalan jabisay oo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada mid kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Armas oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa xukuumadda uga mahad celiyay munaasabadan soo dhaweynta ee ardayda loo sameeyay maayarka Boorama iyo gudoomiyaha Sansof oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna goobtaasi ka jeediyay hadallo la xiriira munaasabadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan ayaa ardayda uga waramay dadaalka madaxweynaha Soomaaliland uu muujiyay muddadii uu xilka hayay dhalinyarada reer Soomaaliland ardaydiina qalin jabisay mid baan oranayaa dhammaantiin hadda wada doontaan inaad xafiis wada fadhiisataan oo suud wada xidhataan ma suura gelayso adduunkana kama dhicin waxaan adduunka ka dhicin Soomaaliland ka suura gali maayo sababta waa idin sheegaya waxaan u suura galahayn dalka waxa la rabaa inay idinku fikirtaan waxaana uu ardayda ka codsaday in ay dadaal la yimaadaan shaqona abuurtaan ummadana shaqo u abuuraan lagana sugayo sidii Soomaaliland nolosheedu u noqon lahayd mid gasha kaalinta koobaad ee caalamka kana dheeraadaan qabyaaladda iyo wixii dubadhac ku keenaya qarannimada Soomaaliland wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Cali Siciid Reegal ayaa isaguna halkaasi ka jeediyay hadallo soo dhaweyn iyo mahadnaq iskugu jira waxaana uu ardayda uga waramay sida xukuumadda Soomaaliland ay waqtiga ugu hortay muddadii munaasabadaha kala duwan ee qalin jabintu ay socotay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo isagu soo dhaweynta casho sharafta u sameeyay ardayda qalin jabisay ee Armas ayaa ka waramay qiimaha wasiir ahaan ay munaasabadan u leedahay iyo sida ay ugu faraxsan yahay inuu farxadda la wadaago ardaydan qalin jabisay wasiirka oo dardaaran iyo bogaadin u jeediyay ardaydan ayaa ku booriyay ardayda inay aqoontii ay barteen wax ka bedesho noloshooda waxaan leeyahay hambalyo sida taa u gaadheen ayaa noloshooda guul uga gaari kartaa shalay waxay ahayd markaad bilaabaysay jaamacaddu waqti dheer 4 sanadood inaad sugtaa casharadu way kugu adkaayeen macallimiinta maad aqoon jaamacadda iyo mustaqbalkeeda maad hubin waxaas oo kaa horeeyay madaxaad u dhigtay caawa waxaad soo gaadhay inaad guulaysato oo ka qalin jabiso waxay saambal iyo tusaale u tahay noloshaada mustaqbalka inaad guulaysan karto oo gaari karto meesha doonayso